الرحمن الرحيم. maanta waxaan joognaa Taarrebe waxaan kala wareejinaynaa geel soo galay oo ay leedahay beesha leelkasi oo soo galay beesha Sacab annagoo mataqaana ka taxadarayna nabadii la bandiray la galdood loo tagay inaysan wax ka halaabin annagoo intaas ka dadaalayna waxaan rabnaa geelaas oo marka hore aan la soo dhicin laakiin baadi u soo tagay inaan kala wareejino annagu labada beelood waa wada joognaa sidaas kii kalena oo mataqaan mid kalena waa noo soo wadaa oo waa la wareegaynaa oo dadkeeda koob diiradii ahaa ildoona aan ku qatinay maanta halkaan la taaganahay Allah na haysiyo ku waran Allah naga dhigo qolka koon maanta halkaan waxaan ku nimid geel baadi u tagay oo beeshan la kasoo hadaa ilaahay geelasa dalka doodan u yahay geelas baan ku wareejinay mudanayaashii walaalay iska lahaa annagana mid xaggooda jiray noo soo wareejinayaan si kalsooni la isoo walaalnimo si ehelna wada jirnaan waad arkaysaan ummadana waxaan ugu baaqaynaa walaalnimadaas iyo wanaagaas oo inuu dhaxmaro annagana waxaan isku aragnaanay wanaagaas bay maalmihii ka horreeyay waan diriireynay maantana walaal wada joogaanahay taqwada Allah isfaraan waxaan faraynaa dadka meesha iskugu yimid ilaahay khaaliqaha in laga cabsado asagoo ilaahay uu leeyahay waxaan idin abuurtay oo khalaqtul jinna walaysa illaa liya'buduun insiga iyo jinniga wax kale oo abuurin cibaadaan u abuuraa ilaahay ayagaas marka in la qaato oo lagu dhaqmo oo ilaahay aan ka cabsano oo wax kale in ilaahay nagu adoonsan aan ogaano waa isfaraynaa haddaan culummo nahay haddaan caamo nahay haddaan ciidan nahay haddaan shacab nahay intaasaan isku waaninayna ilaah quraankiisa wuxuu ku yidhi waa in yattaqillaha yajcal lahu makhrajan qofka alla iga cabsada anigaa ku filan oo waddo toosan iyo makhraj wanaagsan iyo makaano baxsiinaya marka rasuulkuna wuxuu yidhi nin baa u yimid oo wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad ii sheegtaa buu yidhi kelmad qofkaa dambeeya aanan su'aana weydiin qul aamantu billaahi uma astaqim buu yidhi ilaahay intaad waxidid oo tawxiidka ku dhawaaqdid toosnow oo xaaraanta ka dheerow marka waa wuxuu yidhi hal awraca laysa bikhafiyin ninka awraca oo xalaal miiradka ah oo wixii xun iska dhowra oo booliga ka leexdo nabadda la xoojiyo nabaashaan waa meesha xabad joojintii ugu horreysay laga bilaabo Taarrebe nabaddaasi waa nabadda midnimada lagu qabtay halkaana waa xoojintay waxyaalaheeda dhimanaa waxaan rabnaa in nabaddaas la xoojiyo dadka waxaan uga digaynaa inay saadiila idinkeeda leeyahay qof kale dhigiisu bannaanyaa jirin mid maalkiisu bannaanyaa uusa jirin adkeeyo goodaha kale gobolka degaan qaxwa ka soo daalay dhimasho iyo dhaawac iyo rafaad waa ka soo daalay waraada guriga leeyahay oo inuu geed hoosii seexdo door bidaya waxay la tahay inuu sii jiro qaxi iyo dhibaatada ayay inuu guriyay waxaan rabaa maalkii in halaaga uga shaqeeyo waxaan guriga iyo dhibaatada iyo jira iyo nabadda ku bixiye maalkiina ku bixiye maskaxdiina ku bixiye inaan wax yar ka idhaahdo balligan buu ahaa balligii aynu ka bilownay shirkii ugu horreeyey oo nabadeynta galbeedka gobolka mudug geelii ugu dambeeyeyna maanta aan ku kala celinaynaa oo la kala haystay waxaan ugu baaqaynaa ummadda wada degan galbeedka gobolka mudug iyo guud ahaan gobolka mudug iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba in maanta loo soo jeesto nabadgelyada la hirgeliyo nabadgelyadaas la socodsiiyo wax badan baa dadkeennii ay ku dhimanayeen waxaan macna ku jirin waxaan rabnaa taas in laga gudbo annaguna waan ka shaqaynaynaa haddii ilaahay idmo waana ka shaqayn doonaa insha allah waxaanan ugu baaqaynaa galbeedka gobolka mudug hadda waxay u egtay nabadgelyada gunaanad inay tahay si fiican baa loo wada qaatay waa lagu wareejiyey odayaasha iyo ciidankuba geelii baadhida ahaa oo beesha u galay ilaahay mahadiisa waana kala wareegsanay haatan asagaanu kaxaynaynaa sidaas iyo nabadgelyo kii kalena waa naloo gelinayaa waa lagu ballamay in loo keeno lasoo wareejiyo sidoo